إنا لله وإنا إليه راجعون waxaa baarakoy tobankii barqanimo halkan aan joogno ka dhacay qaraxaas oo sida la socotaan laamaha amnigu maanta iyo maalmihii la soo dhaafay waxay wadeen feejignaan iyo baaritaano dheeri ah gaarigan sida ka muuqata wuxuu ahaa gaari ma aragtay goobo kale u socday laakiin xarunta hadda halkan patrol stationka waxay ahayd goob lagu qariyay ama ma aragtay looga gambanayay laamaha amniga qasaaruhu ma badna waxaa ku dhaawacmay ku dhowaad 5 qof oo dadkii ka ag dhawaa goobta patrol stationka ahaa iyo dhimasho hadda waxaan haynaa 2 qof inta la og yahay waa dhici karaan dhaawaca dad ka mid ah inay dib ka geeriyoodaan laakiin dhimashada hadda halkan laga qaaday waxay gaaraysaa 2 qof iyo 5 qof oo dhaawac ah gaarigana sida ka muuqato wuxuu ahaa gaari baakin ku jiray oo halkan patrol stationka lagu xareeyay bacdama aad ogtihiin eriyadan iyo goobaha meeshan wadooyinka soo galo dhan ay checkpointiyo ay ciidanku joogaan ay yihiin maalin ka hor halkan bay ahayd meeshii lagu dilay nin shabaab ka tirsan marka ciidanka runtii waxaan ku ammaanaynaa feejignaanta dheeriga ah oo ay ka muuqato maalmihii la soo dhaafay waxaana rajaynayaa inay sii laba jibaaraan nimanka cadowga ah de qof dhimanaya cidna ma celin karto oo naftiisii raba inuu dilo oo caaway idinku intaad jiiftaan guriga ku soo diyaarsanaya sidii uu isku dili lahaa qofna ma celin karto laakiin waxaan ku dadaalaynaa inuu qasaaruhu yaraado waxaan ku dadaalaynaa in shacabka uusan qasaaro badan uusan gaarin ilaahay idinkiisna waa rajaynaynaa inuu qasaaruhu yaraado aad iyo aad mar kale waxaan ugu mahad celinaynaa laamaha amniga waxaa ka kacay dab patrol station bacdama garan kartaa meeshu inay goob shidaal ahayd ayadana waxaan waaxda gurmadka degdega gobolka Banaadir ku guuleystay in qasaaruhu uusan ku fidin dabka goobaha kale ee ku dhagan patrol stationka intaas uu ku koobnaa qaraxii halkan ka dhacay sida ka muuqatana wuxuu ahaa qarax goobo kale loo waday laakiin halkan lagu qarinayo ama ay ayagu uga dhunteen laamaha amniga gudoomiye waxaa la sheegay in gaariga uu maray halkan isla markaana goobtan isku baakin kadib halkaas uu ku qarxay arrimahaas maxaa ka jira gaariga ma socon markuu qarxayo baakin uu ku jiray gaariga ma socon baakin uu ku jiray waana baaritaana waxaa wadnaa qaabka uu halkan ku yimid iyo sida patrol stationka inuu ku baakinaa iyo in lagu diyaariyo laftirkeeda intaba baaritaanaan ku wadnaa hadda waana ogaan dib aan ka ogaanana maya dadka geeriyooday waa dadkii goobta ku jiray ama ha noqdo ganacsade waa ogaanaynaa ama ha noqdo dadkii meesha u yimid inay ka ganacsadaan wax ka qaataan aad ma santiin